ku dadaalidda wax la inoo damaanad qaaday iyo ka gaabinta wax la ina ka rabo waxa ay caddayn u tahay aragtideenna oo gaaban. haddaba maxay kala yihiin? waxa la inoo damaanad qaaday oo naftu nooga baxday waxa weeye wixii aan cuno lahayn, nolosheenna, raashin, nolol, wax walba ilaahay baa ballan qaaday. wuxuu yidhi wafi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun. wax walbaba samada idinkaga imaanayaan oo annaga idin siinaynaa. marka damaanadeeda ilaahay baa noo ballan qaaday. ilaahay wuxuu ballan qaaday ma jirto naf dhimanaysa noloshaan ilaa ay dhammaysato wixii ay carafka ku lahayd. waxa la ina ka rabo oo aanu ka gaabinay waxa weeye in aanu ilaahay caabudno oo aan ku xirnaano. ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun. insi iyo jinni cibaado un kaliyaan u abuurtay. marka labadaas oo iska kaaya dabamara waxay caddayn u tahay aragtideenna oo gaabatay. waxaan iskula dardaarmaynaa inaan xoogga saarno wixii la inaka rabay oo ah cibaadada. waxa la inoo damaanad qaadayna aanan wax walba ka dhigan oo yool ka dhigan, oo ay sidaan ugu kala caddaato si aan uga badbaadno inaan noqono qoladii aragtidoodu gaabnaatay oo adduunyada ku qancay, kuwaasoo ilaahay ku tilmaamay qur-aankiisa isagoo yidhi wa minhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fi ddunyaa wamaa lahu fi laakhirati min khalaaq. intaasaan kusoo koobaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.